بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. iska warram asxaabta ma fiicantiin dhammaantiin. Maanta halkan yahay ag fadhiya saaxiibadii Aniisa Aadan oo maanta ii sheegay aan isla shaqayn doono haddii la yiraahdo oo podcast aan isla diyaarin doono caawa habeenkii ugu horeysay oo maxay heeday aan mowduuc ka wada hadalna labadayadu idinkana waxaan rajaynayaa inaad maxay heed aad si fiican noo daawataan noo share garaysaan like iyo subscribe iyo comment nooga tagtaan aad baad mahadsantiin ku soo dhaw Aniisa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad baad mahadsantahay. Calaykum assalaam. magacaygu waa Aniisa. waxaan nahay Faadimo ayaan asxaab nahay magaalo wada degan nahay. insha Allah taala nacaa waxaan rabnaa inaan ka wada hadalno arin amba podcast aan ka wada sheekaysano just yani sayna la tahay aragtideeda oo ka wada hadalno insha Allah inkana soo gudbino صح وسفيان رأينا يضع لهيد أو موضوع عن كنت أنا وأنا راعي وحاسير مركا هذه صاحبة دا قف واللي بوحوها يستع مسكح إيه الرأي إنك استوسجال بلاد قوة دلنا مركا وحي جرى يصيدنا إنه جسوا كرديسو أنا وأنا وحن جرى يدير عن كلام كقدره ده وضع شيء كسرنا ما أنت لا وضع الصعدة تبانتين هذه قصة هاي موضوع أنا ما أنتوا معي وحاربنا إير الناس تلتقنوا يعني أنت اللي بدأ قف إلى هاي سكو كان مرودا يو سيجا أنت اللي إسقوسن كهر وحيالا دا لو هاي إن لأوجادو محيطها يعني كم وضع هذا كرنا كل عامهان أنتورنا كم وضع هذا كرنا مورن كرنا وحاي ومدة ما يكرنا لكن حسب أنت إن لتها إنك وحيالا دا بدأ قف أنت إسقوسن كهر محي وبهاي إني وهذا أما محي وبهاي إني قرتان أنت إسقوسن كهر وجور ينرال أي إن الإيمان ayuu yahay caaw mawduuceena de kulay ma dhannaho bil aadan baan nahay waxa weeyaan de wixii anaka nala ahaatay hafay Faransiis dhiganayna wixii anaka nala tahay iyo sida anaka nala tahay ma kulay ka hadlaynaa ma naho culamo ku takhasustay guurka iyo cilaaqaadka labada qof iyo maaragtay si isku guursan lahaayeen hortii dad nooga fiican nooga faradhuuban baa jira laakiin anaku kaliya inta yareen u aragno inay tahay yani isweydiina labadayadu right baan niisoo bandhigayna insha Allah labada qof isguursanaya guurka ka hor may ka sii hadlaan ama may sii bartaan ama waalidku ma u sii sheegaan in ay yani isbartaan ama diinta la barto iyo dhaqankaba maxaa ka horeeya guurka intan qofka labada qof isguursan maxaa loo baahan yahay inay bartaan ogaadaan fahmaan marka mawduuca caawan ka hadlayno waa kaas bal kow maxaa loo baahan yahay qodobka koobaad okay qodobka koowaad haddaan anigu horta aan iska hadlo maskaxdeedana in yar day waxaan isleeyahay aan tuujiyo waxay tahay waxyaalo badan horta waxaa jirta dhaqankeena aanan isweydiin especially dhalinyarta markaa leeyahay uu qofku maaragtay ku jiro waqti la isjeclaado oo maaragtay wiilka iyo gabadhu iyagoo dhalinyaro ay isjeclaadaan de waxyaalo badan oo dib ah oo runtii in laga wada hadlo amba laga fikiro ay tahay ayaa maaragtay jirin taasna waxaan oran karaa bulshadeena uma diyaarsan xaqiiqatan taas oo ma jirto waalidiin because dhalinyartan waxa weeyaan waalid bay ka imaadeen waalidiin arrintaas kala hadla in badan oo dhahaa hooyo amba aabo lama guursada uune yani inaad waxyaalada ogaatinta ka hor ilaahay baa horta bixiya guurku waa qadar waana maaragtay calaf ilaahay keeno qofka aad la kulmaysiin sidoo uu noqonayna qof walba wuxuu jecel yahay inuu khayr qabo wanaagsan la kulmo laakiin qadarku wuxuu ku keenay ma ogid haddana sidaas ay tahay wax walba adduunka wuxuu iskaga baahan yahay haddana in laga yar dadaalo intuu ilaahay wuxuu ilaahay qoro of course waa sax waa halka hore laakiin haddana bil aadan markaan nahay waxa yar muhiim nacam in haddana la yara dadaalo oo bal la baaro in wax la baaro marka waxa oran lahaa anigu sheega ugu muhiimsan waxa weeyaan qofku inuu maaragtay uu garto muxuu horta rabaa hadafkiisu muxuu yahay qofba dhalinyarta markaa la yahayna badanaa dadku waan jecelahay bay ilaahdaan dhalinyarteena waan jecelahay waan ka helay naftayda rabta waan guursanaya that's it mararka qaarkood waxaa dhacda inay gabadhu amba wiilkuba saaxiibkiisii ay mar walba isla joogeen inuu guursado isma dhaho maxaa anigana idhigay waan iska guursado wallahi 90% dhalinyartu saas u guursataa ninku wuxuu guursadaa saaxiibkiiba guursaday anigana maxay dhigay aniguna waa inaan guursado kama fikirayo maxaa aan u baahanahay inaan ogaado qaabkeen u dooranayaa gabadhan guursanayo iyaduna ma odhanayso ninka seen u dooranay imika diinteeno kala waxay tiri waa inaad nasabkiisa qofka eegtid
maalkiisa eegtid akhlaaqdiisa eegsay diintiisa yani hadda wanaad isagoo horta iskaanka saartay ilaa xaafadoodii waxoo dhan baad eegtid cidna waxaasoo dhan ma eegto waan jeclaaday waan ka helay dookaygay noqotay dookaagu waa kee waayihi mararka qaarkood waxaa dhacda dhalinyartu inaaban u haysano oo guurka jacaylkeed hadda dareemaysid uu yahay waa laxda wixii kale kaasina way ku soo maraysaa of course laakiin waxa weeyaan ani waxaa odhan lahaa halka waalidiinta ayaana nagu soo tarbiyadin xaqiiqada markaa laga hadlo ma jirto gabadh ama wiil Soomaali ah oo hooyadii aabahii ma jirto ma oran karo laakiin badanaa anagu arintaas laguma badno oo waxaan ku baraarugsanay waalidiintu ku baraarugsanayeen ma ahan in ilmihii markuu waqtigii baalooga gaaro in la soo fariisiyo waalidkii hooyadii gabadhahay u sheekaysay tiraahdo hooyo yani waxaa jirta waxyaalo badan oo mujtamaceena Soomaaliya wallahi naga maqan laakiin qofku markuu dhalinyar yahay uu u baahan yahay una ogeyn uu u baahan yahay xaqiisa tahay inuu ogaado يعني gabadhu markay maaragtay waqti la gaaro dhalinyar leeyahay oo de bil aadan baa leeyahay dareenkan inuu qof guursado waa wax dabiici ah wax nolosha dhanba kamid ah inuu qofku jacayl uu maaragtay dareemo uu qof doono ilaahay baa sidan noogu talagalay oo san ku tarmaynaba weeyaan xaawiye aadan bay ilaahay wuxuu abuuray inay isweheshadaan ilaahayna awlaaddeha marka wehelkaas ma inay wehel ii noqotaa mise waan jecelahay inuu guursanay waa wehelkii iyo dee wax badan adduunkan yaa maaragtay marka hadafku intaa uu ka dheer yahay laakiin waxaan odhan lahaa dhalinyarta ma saarayo problemka waa waalidiinta weeyaan cidna ma helin ilaahay maaragtay dadka yakun baa isku nasiib unba iska noqotay wixeenayan waalidkay wallahi intay yidhaahdeen yacni guurka sana loo guursadaa sidan baa loo doortaa maxay baa loo doortaa kuma sheegayaan cidna waxba kuma sheegayso hablaha ugu badan ama wiilasha ugu badan iminka guurarkan burburaya oo dhan wacyiba ma jiraba waxba ma kala oga sabir marka labada qof xitaa islaayaan sabir runbaa lagu odhanaya waa inaad sabirsi inuu reerkaaga burburo ma aha maxaa ka horeeya horta waxaan maad fahansantaa ka horeysa ya dhaqankeenu waxa weeyaan inay dumarku sabraan haye way sabraysaa laakiin maxay ku sabraysaa maxaa ka horeeyay may isbarteen may isfahmeen may baratay inantana ma inankani guurka ka hor waxyaabaha loo baahan inuu qofku u barto dabeecadda dhaqanka sabirka muxuu hayeeya kala dambeynta ixtiraamka ya aad iyo aad may waxaasoo dhan kuma baraarugsano laakiin aad ba u wanaagsanaan lahaa runtii inay waalidiintu ku baraarugsanaadaan oo gabadha iyo wiilkaba markuu maaragtay certain age ay gaadhaan lasoo fadhiisiyo la yidhaahdo kulleyba horta anigu waxaan aaminsanahay Faadimoy waxaanan kaa maarsamayn oo kulleyba kuu imanaayo in la iska khaqabeeyo ma wanaagsan ilmuhu markuu waqti gaaro wiilku 15 gaaro ka soo qaad gabadhana sidoo kale in waqtiga lala fadhiisto looga sheekeeyo guurka xataa ma gaariya ma oranaysa yani hadda guursa ma ahan laakiin gabadha kulley intay guursantay dareen baa jiro oo qof bay dooni doontaa qof bay jeclaan doontaa laakiin qof bay jeclaan doonto qofkii saxda muu yahay inaad uga sii sheekaysid waa sax haddaad tiraahdo ma gaarin dhalinyartii nacam waalidiintiin waxay qornaa bismillahi raxmaani raxiim waxa ayaa laga sheekeyn kulleyba haddaad wixii wanaagsanaa ilmahaagii aad ku hagi weydo kulleyba kama maarsamay halka uu tegi soo maaha xataa inamadu markay keensadaan gabadh iyagoonan gaadhin da'diibaa dee 18 jir 19 jir uu yidhaahdo inantan baa rabaa in guursanaya maadaaba gaadhiba maadaa maxayeeba halkaas canaan lagu bilaabaya halkaana waxaa ka imanaya problemyo fara badan marka loo diiday inantii wiilkii gabadhii la isku diido inta la yidhaahda kaale aan ku fahansiiyey maxay baa lagaa rabaa kan kalaa lagaa rabaa kan kalaa lagaa rabaa ina saa ula dhaqantid inaad guursadaysid baa lagaa rabaa cidna ooma sheegayso waxaa shaqaba kuma leenaho waa la eryanayaan qofkan wallahi isagoo information haysan oo macluumaad haysan ubu qofkeena wixii ku dhacay wuxuu odhanaya hadha toolana yarkaa dhex galo wuxuu odhanaya hadha toolana waaba la ii diidan yahay waa laiga soo horjeedaa layma ogolaa inaan noolaado inaan raaxaysto inaan jacaylkayga helo halkaasa daraama la galaya aad iyo aad marka reer baa abuurmaya iyaga oo labadii dhinacba caro dhibaato jirto taasna waa dhibaato si waxay noqonaysaa hadha toolana waalidkaagu wuxuuna ogolayn reerkaasi ma sii jiray aad iyo aad hadal iyo problem hadal ku bilaabmay way yar adagtaa runtii problem inta la sameyninba waxa ka horreysay in waalidku ay u sheegaan ilmahan soo fadhiiso sidaa ugu sheeg sidan kale dhinacan kale oo wax baaraan wax la akhriyo bulshadana waxay u badan tahay qof aan waxba akhrinayn waxna baarayn waxna ogaanayn ya awoogaygii saddexaad
sidan buu samayn jiray baa lagu oranaya waa hidaraac ma ku jirnaa sidee ahay laakiin wax in la bedelo wax la hagaajiyo ilaahay kitaabkeena ayuu ku sheegay wax waliba laakiin uma fiirsanayno laga yaabaa in la fahmaynba macnihi imika anigoo kale kitaabka quraanka wallaahi been kuma sheegayo 30 jis waan dhameeyay laakiin macnihiisa ma garanayn taas waa cilmi kale ugu fiirsatidoo la noolaatid jis ama markaan soo gaaray da'da 20 jir ayaan jis ama macnaheegii barto fahmay waa markaan arabiga caadi u barto in hadalkiisii iyo fahamkiisii aan bartay arabiga ayaan markii dambe ugu fahmay laakiin macallin quraanku xataa tafsiirku kuma dhigayo tafsiir waa cilmi kale oo qofku hadduu fahmo kitaabka quraanka dhalinyarteeno dhan macala waalidku xataa af Soomaali hadda way jiraan kitaab af Soomaali dhinacna Arabi ku qoran dhinacna af Soomaali ku qoran oo qofku akhristo way fahmayaan sawaajku kaga hadlay wax kasto kaga hadlay marka inagu jiilka naga dambeeya waan hagaajinaynaa insha Allah ilaahay na qabto intii yareedan garanayno maaragtay laakiin waxa wanaagsan oo ilaahay maaragtay dadka wanaagana khayrka sheegayo ilaahay inuu noo badiyo waan iska hagaajinaa insha Allah ka haddaan horeba u soo sheegnay yani waalidku waa muhiim waa laga marmaan inay ilmaha baraan tarbiyad wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan iyo awlaadana korinayno runtii fadmo ma ku dhaqaaqaan yani ma sameeyaan waxaan leenahay inay sameeyaan yani hebel waxaan sameeyay heblaay waxaan sameeyay ma sameeyaan balse waxay sameeyaan waxaan annagu aan mar walba sameeynayno iyo naga eegtaan actionada aan sameeynayno mar walba ay ilaashadaan oo eegtaan oo kuwa bay berri ku dhaqmayaan صح haddii ay noqoto anaka waalidkan dan isnacamde iskoon khadiijayna waalidku hadduu yahay waalid wanaagsan oo maaragtay guriga tartiib ka jirto oo wanaag ka jiro oo maaragtay kala dambeyn ka jirto oo aabihii ixtiraamayo sawjadiisii hooyadii ixtiraamayo uu ka dambeeyo horumarkeega iyo wanaaggeega iyo hadday hooyo wax baranaysa tahay hooyo shaqaynaysa tahay intaba uu ku saacidayo hooyadiina ay ixtiraamayso oo kala dambeyn jiro oo qadarinayso oo leedahay aabaha la ixtiraamo iyadii ixtiraamayso reerkaas waxay ubadkaasi uma baahna ilmiheena inaan niraahno waxaan sameeyo waxa weeyaan waxa aan sameeynayno mar walba annagu ay naga eeganayaan marka labadii qof ee ku soo kortay guri wanaagsan runtii aan waxaan u arkaaba waalidka iyo guriga uu yahay mujtamaca dambe hadii guriyaheen wala wanaagsanaadaan ee aabihii hooyadu ay noqdaan hooyooyin iyo aabuhu ka wada fikiraya horumarka ubadkooda ma aha un iskool u dhig iyo intaan u maahinay ka fikiraya oo ka sii diyaarinaya waxa dibadda ku sugaya mararka qaarkood anagu awlaadina waan xadnaa noloshooda ma sii diyaarino adayga iyo nolosha sugayda responsibility ma sii barno marka labada waalid haday saa u sii baraan waxay ka caawinaysaa ubadkeena inay sii haystaan knowledge badan oo qof walba isleeyahay ilmihii wiilkiisa oo diyaarsan oo u diyaarsan inuu galo dhinacii aabihiisa kale oo zoojadiisa bari uu gursado u noqdo maaragtay mid la qabanaya wax walba oo la diyaarinayo awlaadi la haynaayo oo maaragtay reerkii mas'uuliyadiisa wixii soo dhan la og oo mas'uul ah de ixtiraamkii kale iyo kala dambeyntii kale reerku ku jirto sidii suu badan reerkii ugu waxayn gabadhina xaqii hooyadeed bay ka eeganaysaa sida oo kale gabadhu haday tahay haysato aabo wanaagsan iyo walaalo ka waaweyn oo rag wanaagsan iyaduna sidoo kale wiilka ay brito la sheekaysanayso markay arkaan wayara saan beero dul maraysaa waxay leedahay maadaama example qurux badan guriga ku haysato ma baahna wax badan waa kaygi ma ahan because waxay ka arkaysaa aabaheed bay haysataa iyo walaalaheedii ka waaweynaa bay haysataa tusaale haysataa marka gabadhuna sidoo kale wiilkuna sidoo kale baan u jeedaayo dee wuxuu eegayaa walaalihiisa u dhaqmiyeen gabadhii dhaqdhaqaaq badan iyo hawlo badan iyo wax walba macluumaad badan buu ka haystaa marka waxaa badnaanaysaa tafaaruqii dadka inuu nasiib iyo Chinese iyo like furitaanka waxyaabaha ii sheegay ugu badanba waa wacyi la'aantaas wacyi la'aan badan baan haysataa inkastoo qadar yahay ilaahay wuxuu ku qadaray laakiin haddana waxaa isleeyahay dadku waxay dhahdaan wadannadu way isweydiiyaan waayo divorce-kii uu badan yahay maxaa keenay waxa laga sameeyaa maxaa la yiraahdaa research badan iyo yaa laga sameeyaa waxa la baaraa mushaarikiinku maxay yihiin maxay ka imaadeen maxaa laga qaban karaa yani wacyigelin badan oo saasaan u baahanahay arrimaha kale ee aadka u muhiimsan aan u arko inay muhiim tahay waxa weeyaan dhalinyarteenu marka aan la gursanayo ma jirto kuma wacyiga nagu ma jiro inuu gabadhu marka ay intii gursan wiilka ay istiraahdo marka ugu horeysa wallahi wiilkan waa wiilku qalmo oo waa kula mid oo maaragtay waxa maxaa yiraahdaa aduyur ala ashqaalaha taqaani isku eg ba israacda marka tiraahdo wiilkan runtii ku qalmaan wiilkan gabadha way ku qalmantaa iyada uun ha eegin kaliya oo iyadan la dhacayna oranayna familkeegana u noqo صح هو ينوعية
bay leedahay aaba nuuceeyu leeyahay walaalo nuuceeyaa la dhashay guri caankee ka soo baxday waka responsibility gurigeyga xataa gabadha waa inaad weydiisid wiilku yacni inuu shidaari noqdo weeyaa mararka qaarkood weydiiyo uu ogaado su'aalo macna marka la hasaawayo ku jecelahay un maaha moogtahay waa inaad waxyaalo badan ka soo saaranaysid information badan ka soo saaranaysid inaad weydiisid haye hooyo ka warano xaafadii sidee leeyahay oo bayzon yani qaabka u noolyihiin ogaado qaabka u noolyihiin in iyadu reerka dhan hawshiisa ay ku jirta in kale iyana iska tahay mid cuntada miiska lagu keeno waa dib moogtahay hodhow qof caynkaas tahay mas'uuliyad badan iyo awlaadna wax u qabataa sugaysay mahma shaqeeyad iyo gabar ku shaqeysay helayso laakiin haddana hooyadii waa inay og tahay gurigii wixii ka dhex dhacay dumar badan waxaa jira wallahi maanta ilmahooga xataa aan cunto karin ninkeyga iskaba dhaafay ninkii waa qof weyn hadduu gaajoodo dee ma wax ku samaysana ma dibaddu bixu soo iibsan ilmaha meesha ku dulmanaanaya markaa dumar fara badan baan aragnay oo xitaa waxbana karin garanayn marka ilmaheegii waxbana hadna maxaa ugu yar laxoox baa ugu yar aan laxoox samayn karin ilmaheega way jiraan kuwaasina marka ragga oo nina dambiga la saaro ma dumarkana way jiraan anagu midba ma saarayno runtii markaan ka hadalno dhexdhexaad baan nahay waxaan isleenahay waxa in yar eego ma isleenahay nacam halkee wax laga qaban karaa laakiin kullay bilaadankuba dafraynu ma sinno mar kastaba ma sinno wixii problemka rag ma aha mar walba dumar ma aha laakiin waalidka looga baahan yahay in ubadkooga wax baraan wax fahansiiyaan aad imika anigu hooyaan haadna hooyaa tahay sida ugu wanaagsan ubadkeena aan wax ugu bari lahayn ayaa laga sugay adiga aanay macallin aniga waxa macalinku ma yani anagu badana waxaan يعني أنا واحد أمسنا هرتا تربية الأولاد تربيته وآدي يعني وحبرشة حتى بيكون أحسنتها والله قف مركو وحبرنا عيو ده دون وحكو بران كرا لكن أساسك هي أصل كهوس المهم هذوك الصح معه وأذكر هاي سوى شنو تمجرى صدحة تمجرى إنها ترهدي وحقا هجاجنا إياه يعني جهد بدن أو كار إسكارك هداد جلسيد ويدعي كرتها ملها أو دي بيأذي وجوه لقى صار لكن مو وحفظ بها معايا لكن إنه مركو دشوا إلا توسي وسيد جيت كبار لقول الماما جيت مركو يري هذول عن أدعو كل على تجرع سنتها أوريرك هذا كسوت يلقوسها بير بالقول أنا كده كأني جرانا إن سلجر بالوس من جرو كربسار بالوس وقبل جرو ولا تاجي على ربع نص توصل أبحر لكن هدي وليس كده يوصل أبحر ومركو جرده أتكاتو خلاص الله سواء أتي له هذا وجبي وجبي أولادنا وصلاص إن سنة بمركي جران responsibility لو ديبو ولا ما أنت هو أنت صار لك وحصل لك كذا كان هوتيل معها guri la galo oo la soo baxo lama ahan hotelka wuxuu leeyahay shaqaale ka shaqeeya hooyadiina shaqaale iska dhigto aabiina shaqaale iska dhigo awlaadkiina laga dhigo kuwo hameen ku soo hooyanaya ma ahan in responsibility la baro ama raga haadana ama gabadhaha haadana intaba ninku waa inuu garan karo inuu u diyaarsanaado bari hadii islaantiisu ay bukooto amba ay umul noqoto inuu cuntada karsan karo inuu weelka meeran karo inuu wax walba reerkiisa ka qaban karo oo diyaarsanaado hooyaduna waa inay taa u soo diyaarsiyo aabuhu of course oo uu de wiilkuna ka arko aabihii oo dadaalaya oo hooyadii wax la qabanaya waa inuu arko wuxuu ku dhiiranaanaya isagoo weliba shucuurtiisu aad u fiican tahay ayuu berito horesana reer markuu galo tiyo kale oo sameynay waa sax aad marka sidoo kale waxaan soo sheegnay inay muhiim tahay labada family la iska eego aad laakiin dhalinyarteenu kuma baraarugsano waxaad oranay waan guursanayaayo waxa la waran hooyadii baa oranaysa hadday doonto gabadha reerkaas amba wiilkii bay ka gabadheeday ka hooyo wiilkaas reerkooga hoodii ma wanaagsanaa bihiin dadcaynkaas ma yar wanaagsan ma naga deysid may buleeyahay ama mayadan hoodeeda abeed baan kursanaya gabadha ma jeclaada kursan waa gabar fiican laakiin bilcaks yani waxa muhiim wallahi in la fahmo labadan qof markay isku yimaadeen reer dhanoo xidid ay abuurayaan reer dhan bay abuurayaan وسلسلة هويدي هك وسلسلة أولاد بلها نسينا ودوتوري هي ده معوي لبدي ده نحبة يبدأ تضمن أحسن يعني لما كلام مرسمه كل ليه بميلا تسكون من الميسين نتسكو أوقاتي غيركو سيدي هاي ولا مرمان نفتي إذا نأكتي مسؤولية هاي نكو قبضوا أي أكتر نكل إنه مسؤولية وينو نك مركب مقاشين لا لسه هذا لو اللي هبل يبلا غيرك وحبك دعك على حل اللي نعم كاس هدي أركتي ما شاء الله هو جوز رأيك أنا ساسو كوجو حلين لكن قفلوا ما يكور دنين كل محار رأيك كدعة ويسقهرني يبروا مركودا أما ما يا رأيك وحكر أنا ما بقول قصقاد قف كلا بد ويديس كم بدأ شراء فاميلي قف كلا ويديس واحد مقاشة كم قصقاد هيك إن كان أصلا ما ركتي هساوي سان غير كل دجور ديارستين إنه بحكر عين يصير ويديسوا معلومات شو سووا كسيواي قف كاس رأيك كم يجري كده جنته
معلومات ما بها هو كله كجرا aduu doono reerka dhanba waxba kama oo looma sheego information ma siibo qofka haduu engage hayn waxa dhici karta in information badan bal la siinaydo iska maqana joogaya marka gabadhu inay saas u fikirto reerahooda wax weydiiso hatta ay doonto amba family member haat amba saxaaba haatee inay tiraahdo ninkaas iga soo eega sidii yar ciidan ha u dirto soo ogaato inuu nin geesi yahay oo libaaxa oo reerkooda ka shaqeeyo mas'uuliyadda yaqaan hooyadii ixtiraamo aabihi ixtiraamo sidoo kale because haduu day ninkan hooyadii aabihi ixtiraami kaaga noo dhumay ixtiraami doon intaas aaminsanahay runta aad iyo aad marka labada dhinac bay la iska eego waa muhiim oo dhalinyartu ay ku baraarugsanaadaan runtii waxna in maaragtay la sii de su'aalo la weydiiyo san hadda soo sheegaynay labada qof inay su'aalo is weydiiyaan de oo ku saabsan maxaad nolosha ka leedahay rajo maxaad yani noloshana maxaad waxaa bari arkay faadmoy dadku himma caaliya qofku inuu yeesho aad bay muhiim tahay rag waxaa jira himadoodu iska gaaban tahay rag uun yaan dhihin laakiin kulli marka rag lahay wax weyn marka reer la yegleelayo ee reer la dhisaayo de ninba provider soo ma oo reerkii dhisayo oo aqalkii keenayo oo amba ha noqoto kiro amba ha noqoto inuu iibiyo dhisee ninba laga rabaa soo ma hada gabadheedu shaqo kuma leh de gabadhu waxay de maaragtay reerkiga ay ku gargaarayso of course way sameynaysaa oo de gabadhu waxay ku muhiimsan waa inuu isagu soo diyaariyo of course wixii horaan sheegay marka reerka la yegleelayo waxa hore haddii isku waafaqaan iyo ku jeclaadaan oo de wada wax qabsadaan oo deedna shaqeynaya wax la isku birsan reer baa la waxaynaya waa fililaahi alxamdulillah reerka laga shaqeeyo in la dhiso wanaagsan tahay laakiin waxa boqolkiiba boqol laga sugay halkiisa waa wiil sax soo maahan marka waxa weeyaan ninku hadduu hamigiisu hooseeyo weydii waxaad tiraahdaa kaba soo qaad arday baad tihiin ama shaqeer baad haysatiin waxaad oranaysaa haye haddaan iskursano maxaa noo qorshaysan maxaad ku tala jirtaa ragga qaarkood nolosha dhanba easy bay u arkaan waxay ku leeyihiin aqal waxaan iska karaysanaynaa 2 maqsino maqsin baanu galaynaa qol baan galaynaa qolka baan labadeena isku qabaynaa maqsinka kalena reer kale sidoo kale aroos jadiid ah yaa naga karaysan sida nagu lacag nagu yaraato qofka caynkaasa ka dheerow sabaha xaqiiqatan baba khayr mid kale noloshaada dhinac ugu gelinay qofka maya hamigiisu ma dheero qofku xataa waxba haysan waayo laakiin waxa fiican qalbigiisu inuu meel fiican eegayo rajo fiican inuu leeyahay shaqan ka shaqeeya laban ka dhigayo guri 2 maqsin ama maqsin ah laakiin anu aan xor u lahay yaan waxaysan qofku inuu ninku leeyahay caafimaad buusi soo maahan waa inuu xalkii doono shaqo quraata haduu haysto 2 shaqo helo ay 2 u noqoto oo fursad sameeyo oo fikiro oo dadaaladii si uu nolol qurux badan ku geliyo laakiin isaga oo 20 jir xoogii haysta haduu ku raado halka hoosaan ka bilaabayna ka dheero صح أنا وأنا قاعدة أنا وين كستنا قصر دمات هيبة محمد دمان واحدة ما هذا مجرد إن شاء الله خير مركا وحويان أن تاسنا ومهم قبلنا ويلكم نعم قبل ويلكم نك ما هي حاجة بربار اللي ماذا إنه ده يسوي وحي وحكينا يا من كان لنا هاي إني ما ركتي ويلكم نسكوي ديو راهو هاي إن وحلا بدنا ولا سويدية جرت حتى أنت اللي تكون كور أولاد مهم سيدنا وده قرصنا كما وده هذا نانكو بس أوبتكم إيمادين بلا برaaruga markaana khilaaf ay manayda waxba lama sii diyaarin marka waxyaabaha la isku fahmayn waxa kamid tahay ilmaha koobaad markay dhasho hooyadu ninkii wax fahmaya ee ilaahay aqli siiyay ee waxna bartay baa garan kara inay khalkhal ku yimaado hooyada maalintay ay umusho ilmaha koobaad halkaasina problem baa ka imanaya haduuna ninku una wacyigaas una ogeyn marka umusho xaaladii noqonaysaa maxaa ka dambeeya ilmahan in la iska dhalon ma caanaha soo seexiye ilmaha wuxuu rabaa in kuush laga bedelo wuxuu rabaa ii sheegay wax walba u baahan yahay hooyaduna waxay u baahan tahay nasiimo markaas oo kale in la siiyo ilmihii lala hadii la yiraahdo ka waran adiga dhalay hayso hooyaday bisaa soo haysan jirtay ilmihii marka way jiraan rag badan oo sidaas oo ilmaha wuxuu u haystaa bas magacun ilmaha la ii dhalay oo ilmahan mas'uuliyadiisii iyo tarbiyadiisii waxaan oo dhanba una war u hayn oo ku daynayo hooyada way jiraan way jiraan hada wala baatooyinkan haysata ee maaragtay de waa asaaska dil hagaajin waayo waxa ma hagaagayaan aad marka jiilkeena naga dambeeya insha Allah ana waxaan jeclahay faaduma waxaan ku fikiraa mararka qaar baan ku sheegay horta anigu waxaan oran karaa alxamdulillaah rabbil caalamiin maamo Fawziya
ونلا joogtaa magaaladeena nala joogtaa ayaa runtii aniga iyo hablo badan oo de maaragtay hablo badan oo reer Djibouti bay garanayaan aad bay u soo gacan qabatay oo shaqo weyn oo fiican bay bulshada noo haysi ilaahay khayr badan Masha Allah. wallahi marka anigu waxaan kamid ahaa dadkii maamadaas iyadoo xataa dadii kolba qofba si wajiid buu soo galay moogti qof wuxuu soo dhex galay bartay iyo koreer leh qofna wuxuu bartay maaragtay iyo ciyaal leh qofna wuxuu bartay isagoo waxba guursan wali qofna wuxuu bartay isagoo wali hasaawinba صح كهنا ولي هساوي بقى ونكسب من ولا ما شاء الله مبروك عليك labadii 2009 ayaan koow xaafadeeda ugu tagi jiray ما شاء الله barigaas waxaan dhiganayay iskuulka Katriyam maxaa la sanadkii middle school middle school ka sanadkii saddexaad baan dhiganayay marka barigaasaan bartay oo gurigay ugu tagi jiray marka laba qaybood buu kala saari jirtay waxay sameyn jirtay waxa ugu imanay guriga waxay guriga weyn bay lahayd waxa ugu iman jiray 250 baa marmar laga xisaabinayay 300 qof dad ku dhow ما شاء الله ayaa hameenka khamiista iman jiray marka waxa loo kala saari jiray laba dadka reeraha leh هي كويس iyo kuwa single ka marka kuwa single ka waxa la barayay de ninka wanaagsan ee ku qalma ee ku jecel sidaas ku garanaysaa وكا هي yaa runtii la bari jiray جبتو inaga horeysa anaga gabdhaha kalena gabdhaha kale reeraha lana siday sooja maaragtay odayadooda ay ugu noqon lahaayeen kuwa maaragtay xaq ugu guda yani adiga xaq lagu leeyahay wanaagsan iska gudi moogta inaad kaaga horta doonto waxa ka wanaagsan inaad kii lagu lahaa iska bixisay marka taasay baraysay marka anigu waxaan ku jiray dadka maaragtay loo diyaarinayo ninka wanaagsan sidee loo helaa iyo waxyaalada aan aad iyo aad ula jecelahay runtii ee aan ilaa imika markaan xasuusto aan runtii yani ka helade waxay ahayd bari inay tiri maaragtay wiil baaba jeclaad ka soo qaad bili aadan baa tahay dhaqankeena Soomaaliyeed iyo de sida maaragtay gabadhu sharafta ah wiilku ku soo doodoona qurux badan moogta inaad adigu ka dabacay mid waalka qurux badan yahay marka waxayna baraysay wiil hadii aad jeclaatid oo wiilka aad doontid inaad nuude noqodo zawjkaagii dambe iyo mustaqbalkaaga doodeed isla hasoodin nolol ilaahay nagu kala xidho de adigii waad jeceshahay say warba kuma hayo haye waxaad samaynday halkaas hawl taalahay waxaad samayn bay ku tiri ilaahay baad bari ilaahay baa qulubta bilaadanka hayso ma sax ilaahay baad bari waxaan ilaahay qalbigaada iga sii jeedaa hadda ii soo jeeda doo keegii uu khayr leeyahay ina wixii ma garan kartid ilaahay baa wax ka og ilaahu hadduu khayrkii leeyahay igu soo jeedi waan rabaayo na qalbiga ni jacaylka ilaahay baa kugu riday soo maaha adoo isku ma keenino khiyaar ma lihid khiyaar leedo xidhan lahayd dib igu dhig waarun adoo ma lihid laakiin wixii markaad jeclaatay waxaad leedahay ilaahu de keegi ka dhig haddii maaragtay oo de maxay ahayd ay keegi ilaahu iga dhigo hadduu keegi yahay ilaahu de maaragtay ii sakhiro ii soo dhaweey markaad saa samaysay ku jiray ilaahay waa ku aqbalay ducadaadii salaatu leelkaad ka haysaa xilliga maaragtay ilaahay la rabo waan aaminsanahay wax wallo ilaahay weydiisto wallahi been kuma sheegay wad helaysaa waan helaa khayr haddaan weydiistana waan helayaa haddaan shar weydiistana waan helayaa ilaahu weysii hadduu ina wixii haddaan kulli shar ma weydiisanaysid imka waxbaan ayaan yara diiday ilaahu waxa iga fogay haddaan idhaahdo wuu iga fogeynaya ilaahay haddana waxa ilaahay ii fududeena wuu ii fududeynaya wallahi mar walbana ilaahay waan baryaa aad iyo aad ilaahay jecel yahay doomadiisa inay baryaan ilaahay weligay allahayna kitaabka quraanka makhdada dhinacay wii ool jiray wallahi been sheegay ismana faaninay ma sha Allah waan akhrin jiray hadduu leerka xataa uu leer jirin tooshir bas ag dhigi jirin ku akhrin jiray kitaabka quraanka ma sha Allah hooyaday way garanaysaa ma sha Allah abahay baa oran jirnaa kitaabka dhulka maxaad u dhigtaa marka makhdadayda agteeda saa u dhigi jiray maxaad kitaabka dhulka u dhigtaa makhdada in hoos gelin jiray xataa tooshkay marka meel yar xanuuntana odayro ما شيخ الله نحرسته ودنت قرآن كيبره يعني تيجي تشرو قرآن كان هو تدون تشرين ثاني أختار بالليجين مركا قرآن كون آمن سنة هاي واحد إله ويدي ستة إن هلس عادي مركا تا ويدي ستة إلهي نكسي همين الرب يا بدو عيسان يسول ليل كي بتكحيسي إلهي نكسي تجبر يا مركو إلهي كسي يقول كي بتصير بحنا إذا دونيس يكوجو يمدي هيدا إنه عليك سهر جوكسدو يكوجو يمدو عقوله عن كهرباء المستقبل إنه لنا كلها يقلله ما شاء الله لأنه لا شاد بعد أوجد قلبي على كل تاجنا بق تابو كهي يمر نسوان ديار سنة هبا وجار كابن جو اسمه توريسي شرفت كل من بس كسر فكرة يا بلاد كشكة والله اسمه توريسي أصلا طير ومعجز
ما شاء الله علم عشاء سعودة laba cisho la kulmay oo xafiiska ay noogu timid dadka عادي wacdiis عادي hadday mar mikrofoonka qabsatana ma ما dhigto شاء الله ما شاء الله علم ma بدل la dhagaysanaya cidima dhaqaaqayso ilaahay sideedoo kale nagana naga dhigo عادي marka waxaad oranaysaa waan ku dheeraanay waxaad oranaysaa waan maxaa la dhahdaayay waan waxa leedahay diyaar ma ihi kasoo fikiraya baad leedahay waa sir macaaneenaysaa de moogtahay xilad saas ku fiican tahay nolosha qof qaaliyaad iska dhigaysaa oo la heli karin si yar oo fudud hal leedahay 2 cisho 3 cisho qoonsan laakiin is eegaya qalbigaaga yaa dad 3 cisho kareen nafta ka baxsanta adlis maalinta waa sax ومكاني ديار بان inay ka joojisay moogtahay marka culum badan oo aad iyo aad u fiican runtii aad uga faa'iideystay yaan maamada ka faa'iideystay wallahi runtii dadkana uga faa'iideeyna insha Allah aad boqol jeerna wallahi waan aad baan u jeclaa waxaan dhahaa aad baad u mahadsantahay bas wax badan baan ka bartay anigoo waqtigii loo baahnaa jooga oo aan waxba wali aragoo deen nina aamin jeclaan oo waxba aan hasaabo xataa bilaabin ayaan iyada durusteeda qaatay wallahi waa fiican khayr badan ilaahay maamada hasi dadka dhan waxaan jeclaan lahaa anigu inaan la sameeyo maktabooyin caynkaas oo qofku intuu guursan ka hor inuu certificate soo qaato 6 bilood 1 year oo la soo tababaro oo ilaa uu qofku responsibility la yiraahdo maanta diyaar u yahay certificate ka baa lagu siiyay hadda 12 sano qofku jaamacad dhiganaya ma wax barasho u galay 12 sano waa ka soo bilow elementary ilaa high school 4 sano jaamacad u geey 6 bilood qofku uu barto يا محو حق وليه محا حق لي وليه أي كم يمسون والله وكتاب كان معني سو أي برتان آد إنا بوغان لا أخريه نوع مهم كشكين زوج محا زواج كا محلا جا باهي مركو لجورسة كهار إنا أوقاتي محلا جا باهرسه مركز جورستي كدب لها ركوسي ركشد يعني بربارنتي ركي كه ربا إسكو إيمانية يعني it's a lot of things ما هو حير وفرض إلهي هنحرقه ويجران بوغاك Soomaalidu ay qoreen oo maxay xitaa waxa la turjumaan karaa kuwan maxay Englishka ku qoran ama kuwa Carabiga ku qoran luqadda qofku ku fahmay ku bedelan kara laakiin dadku wax akhriyaan ay wax bartaan ay fahmaan xitaa hadana waxba akhrinin fiidiyoya jira fiidiyoyada dadku ay daawadaan wacigooda kor u kicilaa wallahi hadda hooyada ay aabaha ay ilmaha ay deenin waxba barayn waxa qurux badan inay Google ka galaan wax baaraan isbaraan iyaga laftirkooda heesa jacayl la isku diro iyo waraaqada jacayl la isku qoro iyo wax badan ba ka horeeyo waxaas meel ma sii gaari karayo hadallo la yidhi bay noqonaysaa marka insha Allah waxaan rajaynaynaa khayr iyo baraari barwaaqo ilaahay maaragtay aad baan idin salaameynaa ka faa'iideysta cidii sheegay أنا قرينا أنا فاطمة ناصر علي إن أنت نوحل هذا أنيسة آدن برشوا ناكسن مركا channel كيغانا سبسكرايب يا لايك يا شير نصارى أدبد ما تنتهين محو هاي موضوعية دا أدشين إن رجع هذلنا comment كانوا وصاقرة إن كستو أنا وأن هاي سنة موضوعية هذانا وان رأيي نوع مهم إن أرجنا وقفوا اللي بوحو تشعلي هاي أد هل كانوا وصاقرة أنا ونوع دي سو درنا وحكول بان أدركتينا كهذلنا waad mahadsantihiin habeen wanaagsan maca salaama khayr badan bay idin rajeynayna bye bye